dhawaanshahaga alla aad u dhowdahay hadba kolba cabsidaadu intay la eg tahay wey inna akramakum cinda allaahi atqaakum midka idinku maamuus iyo sharaf wanaagsan ilaahay agtii waa qofka idinku cabsida badan sida awgeed meesha ilaahay wax ka qiimaynayo waa cabsida iyo qofka qalbigiisa waxa ku jira wixii camalay aad samaynaysay aqbalkoodu ilaah inuu kaa aqbalo acmaashan aad samaynayso salaadii soonkii sadaqadii quraan akhriskii wardigii ducadii waxaas aad samaynaysay kala duwanay acmaala ilaah inuu kaa aqbalo waxay ku xidhan tahay qof alle ka cabsanaya inaad tahay markaasuu alle wuxuu leeyahay subxaanah innamaa yataqabbalu allaahu min almuttaqiin ilaahay waxa uu wax ka aqbalaa uun oo keliya waa kuwa isaga ka cabsanaya marka dantaadu waxay ku jirtaa ilaahay inaad ka cabsato rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiidka macruufka ah qof waliba uu garanayo muslim ah ittaqi illaaha xayumaa kunta meel walbo aad joogtid ilaahay ka cabso suuqa guriga madrasadda masaajidka shaqadaada maqaaxiyaha meel walbo aad joogtid ilaahay ka cabso maxaa yeelay inna allaaha kaana calaykum raqiiba alle isaga idin ilaalinaya wuu ku arkaa waa ku maqlayaa waa ku ogyahay waa kula jiraa bicilmihi alwaasic kama qarsoonid mar qudha meel kastoo aad gashid ilaahay waa kaa warhayaa markaasaa ilaahay wuxuu eedaynayaa dadka qaar u haysta in ilaahay ay ka gaban karaan ama ay ka qarsoomi karaan marka ay waxaan wacnayn samaynayaan ama si kale haddaynu u nidhaahno dadka ishoodana iska ilaalinaya markay dadka la joogaanna isdhowraya marka ay goonni u baxaanna waxay doonaan qooshanaya markaas alle wuxuu leeyahay subxaana yastakfuuna min annaas walaa yastakfuuna min allah wa huwa macahum id yubayituuna maa laa yardaa min alqowl waxaa la yaab leh yastakfuuna min annaas dadkiibay iska qarinayaan marka ay ama waxun dhegaysanayaan ama waxun daawanayaan ama waxun ku hadlayaan ama waxun soo jeedinayaan ama waxun samaynayaan yastakfuuna min annaas dadka iska qarinayaanoo wuxuu leeyahay dadku meelaanay kaa arkayn waxaa ku hadaloo samee ama daawo ama social mediaha ku qor ee lagu arki maayo magacaaga magac kale iyo sawir kale saar saa doonta u samee cidi kuma oga walaa yastakfuuna min allah laakiin ilaahay iska qarin maayan qorshuhuba uguma jiro allah ku arkaya allah ku maqlaya allah kuu jeeda allah kula socda ilaahay baa ku og allah kaa warhaya qorshahaba uguma jirto marka waa inaad ogaatid mar kasta allaahu yasmacunii allaahu yaraanii alle way maqlayaa alle way arkayaa alle waa ii jeedaayo way ogyahay alle waa ila jiraa naftaada waa inaad u sheegtaa sida qaarkeed awgeed dadkii salafka ahaa caruurahooda markay rabaynayaan waxyaabay ku rabayn jireen waxaa ka mid ah inay odhan jireen ku celceliya sida wardiga oo kale allaahu yasmacunii allaahu yaraanii ilaah way maqlayaa way ii jeedaa way ogyahay way ila jiraa qofku naftiisa ayay arrintaasi gelaysaa dabeetana waxay keenaysaa qofku inuu is-ilaaliyo bay keenaysaa walaalayaal wakhtiga dunidan aynu joogno cumrigeennu waa kooban yahay in yar baad joogaysaa dunida khaasatan ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wakhtigoodu waa kooban yahay wakhtigaa kooban qof waliba hadba wuu si uga faa'iidaysto haddaad dayacdo wakhtigaagii waad ka shallaayi doontaa maalinaanaya shallay iyo qoomama waxba kuu tari doonin haddaad wakhtigaaga ka faa'iidaysatana waad ka faa'iidi doontaa ilaahay agtii baad ku farxi doontaa sidaa awgeed baa si aad u fahanto horta wakhtigu
ينولشاد عمرigaagu ما هو عمرك ما هو عمرك عمرigaagu muxuu yahay horta isweydiiba wal umriyow maxaa tahay umrigaagan uurka hooyada marka ku jirta la qoray al umru lahu sifaatun thalath umrigu wuxuu leeyahay saddex tilmaamood saddexda tilmaamood qofkii garta waxa hubaala inuu umrigiisa ka faa'iideysanayo الصفة الأولى تلمانتا كواد العمر لا يتوقف عمره مرقر استاقي ماي انت نوشة هاي ساعدو يسكندو ويسعونيان حدي شيفته وآد هرودو حتى هداد ترى هذا ور عمري يجي وان يرد شيفتنا ياي ده هاي حسعوني تشوكسو أنا ور دقائق ما يلك فراش كان شيفاي ما كان يلي وسعوني حدي سوليجا قشوا وسعونيا haddaad sheekaynayso haddaad wax daawanayso haddaad wax cunayso haddaad wax cabayso xaalad kasta oo aad ku sugan tahay al-umru la yatawaqqaf umrigaagu mar qura istaagi maayo waa soconaya xaquu ku socdaa umrigan wuxuu ku socdaa halkii uu ku joogsan lahaa ee waqtigu kaaga egaa halkaasuu ku socdaa isma taagaya marka ama wax xun samee ama wax wacan samee isagu waa soconaya waana sajilmaya waxaad samaynayso waa la qoriya الصفة الثانية العمر لا يرجع إلى الوراء عمري دب أما نقضه دب أما نقضه إمنك أقرب مثال وحين تشوقنا هبين ثلاثة حدين أسوتقنه نفي مال وحين هينه علمي عقلي وحين أسوكينه دب ما وعلين كرينا صبحي ساكي سنين تما كسو بلابي كرينا كجواب يا جماعة جوابتوا مايا إنو عمري سعودي دب النقضة أو أدب عليسو أبد الأبد هكيابي maalinta isniinta tagtay waa say ku dhaaftay waliga kugu soo noqon mayso waa tilmaanta labaad soo maaragt ma istaagayo mar qura istaagi maayo dibna u noqon maayo الصفة الثالثة العمر لا يتمدد iska dheeraan maayo cimrigu iska socon maayo waqti buu leeyahay uu barakoobaya cimrigu hadaad wax wanaagsan de la timaado waxa laga yaabaa cimrigaaga iyo konton jir ku salaysnaa in ilaahay boqol jir barakadii ku geliyo waa barakoobaya laakiin ziyaadi maayo socon maayo cimrigi mar hadaanu istaageen dibna u noqoneen siyaadayna soo inaad ku faraadeegto afarta adin ilkaha isugu geyso maaha marka gudadaas cimrigaaga wax wacan aad ku hoyso oo ku xarayso waa laga maarmaan marka nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay iqtanim khamsan qabla khamsin shan ka faa'iideyso shan intaanay kugu iman cumrigaaga ka faa'iideyso dhalinyaranimada ka faa'iideyso intaadan gaboobin caafimaadka ka faa'iideyso intaadan bukoon geerida ka nolosha ka faa'iideyso intaadan geeriyoon waqtigaaga ka faa'iideyso qofku marka inuu dadaalo oo waqtigiisa ku xisaabtamo waa laga maarmaan waqtigu wax walba waa ka qaalisan yahay innagana ka mujtamac ahaan waxyaabaha aynu dilno ee dayacno waqtiga ka mid ah qofku wuxuu koranayaa waqtigan soo sheekan ku luminayaayo waa soo shaahay maqaaxidaasna waqtiga isaga soo luminaya ama waxa laga yaabaa qofku inuu haduu qaadiyo balwad cuno uu de barqadii fadhiisto habeenkii ka kaco saqbarkii inuu ka kacaaba dhici karto ama ilaa iyo fadhiyo maqribkii haduu dadaalo 7-8 saacadood ba maalin walba cimrigaagi lumaysa adduunna aan ku jirin aakhirana aan ku jirin xisaabteeduna ay ku dul taalo waa laga maarmaan qodobka saddexaad dunida markaa joogtid dadku waa qaybsan yahay dad waxa la yiraahdaa ahlul ma'ruf dadna waxa la yiraahdaa ahlul munkar mujtamacu qaybna waxay ka shaqaysaa maxay khayrka iyo wanaaga iyo diinta iyo danta madu waxay ku jirto if ya aakhiro ay ka shaqaynayaan qayb mujtamaca kamidahna xumaan iyo shar ay ka shaqaynayaan adigu marka dunidii baad ku nooshahay labada qolo
keebaad awrkaaga ku xidhiidhsanaysaa awrkaaga keebaad ku xidhiidhinaysaa qolana jahannamay geedi u tahay oo awrteedii ku xidhiidhsatay qolana janno iyo khayr bay geedi u yihiin oo waa socdaan adigu safkeebaad gelaysaa nabigaa sheegay sallallahu alayhi wasallam xadiidka fi al-adab al-mufrad min xadiisi qabiisa ibnu burayda rasuulku wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam ahlu lmacruufi fi dunya hum ahlu lmacruufi fi alaakhira ahlu lmunkari fi dunya hum ahlu lmunkari fi alaakhira bal xadiiskaa u fiirso cajabtiisa ahlu lmacruuf almacruuf waa kalima jaamica dadka macruufka iyo khayrka iyo wanaagga iyo diinta iyo danta ummaddu waxay ku jirto ehelka u ah ee ka shaqaynaya ee u heelan ee la imanaya sida aad noloshoodu ku salaysan tahay ilaahay hortii aakhire markay yimaadaanna kuwa khayr qabay noqonayaan ahlulmunkari fi dunya adduunyada kuwa xumaha iyo munkarka wixii ilaahay aanu oggolayn ehel u ah qowl iyo ficilba samaynaya sidaa gaashaanbuurku ah ee ku wada socda isugu garbinaya colaalkoodu waxaa ka shaqaynayaan aakhirana xumaha ehelkiisay noqon doonaan aakhiro xuma ehelkii iyo shar ehelkii ayay noqon doonaan buu nebigu sallallahu alayhi wasallam xadiiskaasi wuxuu hagayaa noloshaada halkii aad ku beeri lahayd soomaalidu dhaqankeedu iyo mahmaahdeedu murti xoog leh ku jirta shakhsiga Soomaaliga ahi inuu dhaqankiisa iyo mahmaahdiisa bartaa wax weyn bay ka tahay garaadkiisa iyo habsami u socodkiisa waxa kamid ah mahmaha Soomaalidu waxay yiraahdaan dadku waa xoolo la joog iyo xaaja la joog qaar xoolahay la joogaan oo xoolahay ku wacan yihiin inay hayaan oo dhaqaan oo ka shaqeeyaan qaarna waa xoolo la joog xaaja la joog oo te xaajadii bay hayaan markii xaaja timaadaba if iyo aakhiro wixii la doonayo hebel iyo hebel loogu yeedhaa la odhanaya abalinkii hebel ha la doono xaaja iyo arrin baa jirta waa xaaja la joog kuwaasina qaybta saddexaadna waxaa la yidhaahdaa xasarad la joog xoolana waxa kaaga soo qaban maayo xaajana kaaga beegmi maayo xasarad balka kula fadhiya xasaradiyo maanta miidiya heshayna way duulaysaa Soomaa garbay haysataa miidiyahaasi ku duulaysaa ninka xasarada la fadhiyay bulshada qaybaheeda kala duwan umuurteeda haddii diin iyo khayr laga hadlo wax xasaradaynaya haddii horumar laga hadlo wax xasaradaynaya xasaradaas halka la fadhiya wax kale lama soo fadhiyo sida awgeed inagu waxaan rabnaa noqonno in xoolaha la joogto dhaqaysa in xaajada la joogto ka shaqaynaysa iyo de ku dar in diinta la joogto raacaysa de Soomaalidu saddexdaas yiraahday halkaadaynu afar ka dhigno iyo diin la joog baan oran karnaa Soomaha de in diinta la joogto ka shaqaynayso dadkii baranayso dacwadii diintii iyo khayrka ka shaqaynayso ma sahlana sida awgeed qofka muslimka ahi waa inaad dunida wax ku soo kordhisaa waa inaadan culays ku noqon dunida iyo dadka dushooda waalidka ku dhalay aabaha iyo hooyada culaysa ku noqon mujtamaca nin fardheeraado culaysana ha ku noqon qof wax soo kordhiya noqo haddii kale aad bulshada culays ku noqoto lugooyon baad la imanaysaa wa huwa kallun calaa mawlaa aynamaa yuwajjih laa yaati beesh laa yaati bikhayr wuxuu ku yahay culays halkii loo diraaba khayr ka keeni maayo ha noqonin qof halkii loo diraaba aan khayr ka keenin waa in meeshii lagu diraa aad khayr ka keentaa wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun waa in cibaadadii ilaahay kugu talagalay lagaa helaa iswarayso adiga iyo ilaahay xiriirka cibaade idiin dhaxeeya halkuu marayaa iswarayso bal salaada sidee baad ku tahay imisa salaadood baad jamaca ku tukataa oo adoo masaajidka ku jira salaadii la adima ama la qiimaa imisa salaadood baad safka hore ku tukataa
qur'aanka maalintii intee akhrisaa ugu yaraan sidee baad ku tahay sunnayaasha salaadaha ka dambeeya iyo sunnayaasha kaleba wardigaagu iyo tasbiixdaadu xaggay maraysaa ducada iyo baryada ilaahay aad barido 24 saacadood imise daqiiqo ama haddii la isu geeyo saacad ama saacado ayaad ilaahay baridaa addoon baahan baato rabbigii aan marna ka maarmayn isweydii wax khayra iyo dacwo iyo diin maxaad ka shaqaysaa maxaad barataayoo kororsataa oo inuu qofku iswaraystaa oo naftiisa aanu ilaawin waxay keenaysaa inaad iska warhayso oo naftaadii ka warhayso oo aad cibaadadaadii waqtigaagii ku dadaashid waayo gooraad dhiman doontid ma ogid ma dhallinyaranimaad ku dhiman ma gabowbaad ku dhiman ma meel dhexaad ku dhiman ma ogid laakiin geeri baad ku xukuman tahay geeri haddaad ku xukumantahay waxaad u baahan tahay cibaadada ku dadaashid rasuulka saxaabada axaadiidta ka sugan maalik ibn al-Huwayrith fi saxiix al-Bukhari rasuulkaan u nimi sallallahu alayhi wasallam annagoo dhalinyaro oo isku fila isu dhowdhow ayaan u nimi fa aqamnaa cindahu 20 layla labaatan habeen baanu la joognay xataa idaa ra'aa annanaa ishtaqnaa ilaa ahliina ilaa rasuulku markaa uu dabeeta arkay inaan u xiisnay ehelkiiya reerihii inaanu qabanno markaasuu noo yeeray markaasuu rasuulku wuxuu nagu yidhi salaada markaad dadkiinni ku noqotaan sidaa aad aniga aragteen anoo u tukanaya salluu kamaa ra'aytumuunii usalli sidaad aragteen anigoo u tukanaya u tukada ehelkii markaa u tagtaan wanaagga u sheega xumaha ka celiya salaada tukiya cibaadadooda ku dadaala iyo xiriirka ilaahay ku xidhnaanaya ayaro toddobada qof ama toddobada qaybood bulshada ee harsan doona carshiga ilaahay maalinta aakhiro maxaa ka mid ah shaabun nasha'a fi cibaadatillah dhalinyaro u badan ragga masaajidka fadhiya iminka machadul waxyayn wax ka dhiganaya toddobada qole ee carshiga ilaahay aakhira harsan doona waxa ka mid ah dhalinyaro ilaahay cibaadadiisa ku barbaaray oo ku koray oo weecweecashada iyo wada ka baydhbaydhka dhalinyarada kale ka nabadgalay isagoo dhalinyaro ah qofku markuu yar yahay dhalinyaro yahay waxaa la yidhaahdaa waayo aragna maaha udashal u dhashay maanta waa nin yar oo waayo arag maaha xagga kalena fudayd dhalinyaranimaa ku jira soomaalidu mahmahayada waxaa ka mid ah 20 jir intuu geed ka boodo ayuu tala ka boodaa waxaana keenaya laba sifo oo uu leeyahay sifada koowaadi waayo arag maaho iminkuu korayaayo waa geedkaa yaroo soo baxay waa badanba uma bariyin sifada labaadna waa fudud yahay weli caqligiisii iyo garaadkiisii si wacan uma fadhiisan wuxuu oran jiray cabdullaahi ibn mascuud radiyallahu anhu ashabaabu shucbatun min aljunuun dhalinyaranimadu waa qayb waalida ka mida buu oran jiray waalidan dee maryaha tuurtay ma aha yacni wuxuu uga jeedaa fudaydka iyo isdhexmarka badan marka nin qofka dhalinyarada ahi wuxuu u baahan yahay cid ka aqoon badan oo ka waaya aragsan oo celcelisa inta uu soo kobcayo kolba sidaa awgeed waxaa laga maarmaana inuu culimada mucallimiintiisa ku xidhnaado oo tala weydiiyo oo dhegaysto oo xikmadda ka qaato wax weyn bay u taraysaa aad u weyn ay qofka u taraysaa noloshiisa dadka waaweyn ee waayeelka ah inuu waayo aragnimada ka qaato oo la sheekaysto waa shay aad iyo aad muhiim u ah oo qofka wax badan taraya sidaa awgeed baa asxaabtii markaad fiiriso 10 mubashiriina biljanna dhalinyaray ahaayeen markaad hoos u eegto xilligii ay soo galeen diinta abubakar markuu soo muslimay radiyallahu anhu 37 jir buu ahaa مثلا عمر مركو صوم مسلمي تضبيه لباتن شربوها عثمان أفريا سدن شربوها علي بن أبي طالب طبعا كي سنة ما قارين وإنا يروا أقل كرسول كتشوغ صلى الله عليه وسلم بوها ما كي رسالة وقات طلحة بن عبيد الله
أفريتوبن شيربوها كدين تقاته زوير بن العوام لحيتوبن شيربوها كدين تقاته سعد بن أبي وقاص تضبيتوبن شيربوها مركودين تقاته سعيد بن زيد شنيتوبن شيربوها رسالة دين تقاتي بردو فرس أبو عبيدة بن جراح تضيلبات تنشيربوها عبد الرحمن بن عوف صدن شيربوها وحد كراجع إذا مكتبة دوايا لابن فيليا الإصابة في تمييز السحابة إلى المحجر أفر مجلدو دوي بهلكا كراجعوه مدول بسا كشيكينيا انت هادان كسو قرقوري marka laga yimaado wad ka raajici kartaa taas waxay ku tusinaysaa saxaabadu dadkii diintan garbaha qabtay ee kiciyay ee dunida afarta qaaradood la kala aaday ee islaamka ilaahay iyo diinta ku guuleeyay dhalinyaro ahaayeen dhalinyaro aan afartanka gaadhin dhowr iyo 10 ilaa 40 inta ka sokaysa ayay isugu jireen waxaa laga maarmaana marka qofka muslimka ahi in uu dadaalo inta uu nool yahay nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaahay markuu la hadlay wuxuu yiri fastaqim kama umirta utoosnow sidii lagu amray lacanaanta eeg utoosnow sidii ilaahay ku amray adiga iyo intii ku raacday wixii xad gudubay barbar iyo khalad iska ilaali balay جندب بن عبد الله رضي الله عنه وحليه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن رسول كان لتشوغني أنغو دان يريس كفلا فتعلمنا القرآن كانوا برني ثم تعلمنا وحانوا برني هدنا قرآن كان معنيهيسي لفظيسي علمي معنيهيسي بانوا برني إيمان بانوا زياد سنة عبادة زياد سنة صحابة دي مكي كور رميان رسولك الله تشوغي صلوات الله وسلام عليه سيداسي أهاين سو رسولك تربيين شري عبد الله بن عباس إنا يرأى يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وتربية نبي سيني ودلين يرى مركاد وحعونا يسوهنا يهو بسم الله ده ميدك تنكعن حيرا أما سحني قاد وحكعونا يسانا حقا كسو حكتا كعنتا كقلي بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولكم مركا لو يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إلهي إلى شو إلهي وكو إلالنا إياه مكذا اللي يرتها هاي إلهي إلى شو سبحانه وتعالى إلالي إندهاغا دقهاغا قولكاغا فعلكاغا قلبكاغا إلالي دينتي شريعتك إلالي إلهي وكو دور يا سبحانه وتعالى حديث كما كو شرح يو الحافظ من رجب الحنبلي كتاب كيسا جامع العلوم والحكم سان فيليو مرة يقدم بيسان كأيجي لكن وحن قوي أركي شرحي سنة آد بنو فيليا وحو كان مركو حديث الشرحين يو قصص نو كانا نين أضيع أو دأوين أو دوني كسو حيرتي بدا كسو بودي dhulka ku soo degay heebti soo socday markaas dadkii la yaabeen war ninkan shaybka sidaan u boodaya hadana nin sahlan ma ahay ninkan markaas la weydiiyay waxa lagu yiri odayna waa tay boodadaaduna sidaan yada u boodaysaa waa sidee هذه حواس حفظناها في الصغر xubnaha dad arkaysa buu yiri anagoo dhalinyaro abaanu ilaalinay markaan dhalinyarada ahayn ayaanu xubnaha iyaga xumaaniya macaasi dunuubka ilaalino diin baanu ku ilaalinay markaanu weynaanayna ilaahay baa noo ilaaliyay kaanu gabownay oo weynaanay ilaahay baa noo ilaaliyay subhanahu wa ta'ala waa sidaad ilaahay wala macaamisho haddii maanta adoo dhalinyaro ah salaadii aad seegseegto oo salaad subax ka seexato oo casarkii ka seexato oo filimaan daawato oo macaanka riwaayada daawato oo caawadan baalka ku dhex jirtay maanta oo dhan oo wax kale waqtiga ku lumisid oo maxaan ku idhaahdaa heesa dhageysatid wax kale waqtiga ma la yaani ku lumisid indhahaagii iyo gacmihii iyo lugihii iyo maskaxdii iyo aqliga alla ku siiyay baad ilaahay kula dagaalamaysaa soo ma ogid markaad xumaanta daawanayso ama aad xumaanta dhageysanayso ilaahay inuu awood u leeyahay hal mar inuu arga indhahaga qaadi karo indhihii caadi oo saw kala furan
nuurkii aragga inuu kaa qaadi karo hal mar wax soo celin karaana ma jiraan soo ma ogid inuu hal mar maqalka dhagaha kaa xidhi karo dhagahan isaga iskale adigu ma lihid waxaa laguu siiyey inaad ku intifaacdo xaqa iyo khayrka ku dhegaysato hal mar buu kaa qaban karaa maqalka cadkan weynee meesha ku yaala waxba laguma maqlo maqalku waa wax ilaahay meesha ku sameeyey imisaa dhegtu joogtaa oo maqalku maqan yahay aad aragtay wuu qaadi karaa soo ma ogid inuu caqligaba kaa qaadi karo kaad xumaha daawanayso ama dhegaysanayso ama samaynayso hal mar inuu caqliga kaa qaadi karo oo khalaas xubnahaagii jirkaagii waa joogaan laakiin maa fi caqal majnuun baabad noqotay soo ma ogid hal mar inuu jidhkaaga qayb ka mida bakhtiin karo lug iyo gacan iyo il iyo waax dhan inuu ku ridi karo hal mar adoo xumaantii ku jira cid soo celin kartaana ma jirto adduunka waxa jooga hadday isu tagaan xubin ilaahay bakhtiye ma soo noolayn karaan jidhkaaga iyo naftaada ha kula dagaalamin ilaahay caqligaaga ilaahay ha kula dagaalamin aqoontaada ilaahay ha kula dagaalamin maalkaaga allah ha kula dagaalamin adoon ilaahay ka dambeeya noqo allah markuu leeyahay subxaanahu wa tacaala in allaha yaxuulu bayna almar'i wa qalbih alle wuxuu kala xidhayaa qofka iyo qalbigiisa shawkaani markuu aayadda fasirayo sidee ilaahay qofka iyo qalbigiisa u kala xidhayaa fatxulqadiirka tafsiirka markuu aayadda fasirayo wuxuu leeyahay qofkani macaasi buu samaynayaa ka noqon maayo wuu caadaysanayaa dabeetana hal mar baa ilaahay isagoo wixii ku dhex jira buu ilaahay geeri lama filaana u keenayaa ama caqliguba alla ka qaadaya caqliga ayuu alla ka qaadayaa wixii macaasi ee xumaan ee u caadaystay uu samayn jirayna adoogow waa ku raran yihiine isagoon weli ka soo hooyan oon ka soo noqon ayaa laga qaaday caqligii inta u hadhay noloshiisa waali iyo dayac buu ku dhammaysanaya aakhirana wixii baa la horkeeni doonaa marka iska ilaali qalbigaaga toobadda alle yuu ka xidhin markaad geftidba toobadkeen walaysat tawbatu liladiina yacmaluuna asayi'aat xataa idaa xadara axadahum almowt qaala innii tubtu al'aan ilahay wuxuu leeyay toobad ma leh liladiina yacmaluuna sayi'aat kuwa xumaha caadaystay ee dhaqan iyo macabiil ka dhigtay macaasida iyo xumaha toobad ma leh goorma dee waa markaas xataa idaa xadara axadahum almowt marka mid iyaga ka midihii geeridu ku timaado halkaasaa nafti ku soo ururta qararardhaq waa tawxiidka u qabta ma ka baxday ma ku jirtaa waa nool yahay soo yara fadhiisiya jiifiya mid dadkii dul jooga mid wuxuu leeyahay fadhiisiya mid wuxuu leeyahay war ka daayo fadhiisi jiifiya mid wuxuu leeyahay barkimaha loo geliyo mid biyo siiya mid wuxuu leeyahay caynkan faleebadii kuma soconayso nafti waa ku jirtaa markaasuu xusuustay wuxuu qooshan jiray iyo macaasidii iyo xumihii uu samayn jiray markaasuu wuxuu ilaahay soo tabinayaa oo inoo sheegayaayo inoo caddaynayaa kii hore u toobad keeni waaye rabbi u soo hoyan waaye alla u soo noqon waaye xaaladdu markay ku adag tahay oo jidhkii intii kale naftu ka soo baxday luguhiya gacmuhu ma dhaqaaqayaan intaa laabtay ku wareegaysaa waa socotaa markaasuu isleeyahay iminka haddaba alla ilaahay wixii ka soo noqo walaysat tawbatu liladiina yacmaluuna asayi'aat xataa idaa xadara axadahum almowt qaala innii tubtu al'aan lu fiirsa aayaddaas bilaahi calayk toobad ma leh liladiina yacmaluuna asayi'aat kuwa xumaha iyo macaasida samaynaya xataa idaa xadara axadahum almowt marka ay geeridu ku soo xaadirto mid iyaga ka mid ah oo dabeetana uu yidhaahdo qaala innii tubtu al'aan iminkaan toobad keenaya kaa yeeli maayo ilahay leeyahy subxaana wa tacaala rasuulku muxuu yidhi sal allahu alayh wasalam ina allaha yaqbalu tawbata alcabdi maa lam yugarqir wa fii riwaayatin maa lam tatluc ashamsu min maqhribiha ilaahay toobadda addoonka wuu aqbalaa intaanay naftu halkaa cunaha ah aanu dhuun yeerin oo halkaa isugu soo ururin
أما أنا عدعيضو قبل أدعك الصبح إلهي أنت كهر استبدا وأقبلها قفك مؤمن كوقفية وخلدمية وبشر باتها ونفي الشيطان إياك وهلية وحاد مركا إن بعد لقى وحبضنا وحمانا كوكو كلفان لكن درتبدا إسكدبطوا وإسقبوا إن الذين تقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون هو الله كعب صدي هدي الشيطان كحما كتابته اسكو ريغي بلايدا شياطينتا انسيغي جين كخدونا وقفو خلدمو معاصي دنبي كدعو مركبو اسكرنا وريا سوديغا خلدمي وسوديغا الهي كغفي ورسوديغا معاصيدي حمانتا كجيرا ور الله توبد كين الهي waa ku soo noqday الله يعفي الله يسامح وعينك sida awgeed baa habeenkii markaad seexanayso intaadan seexan waa inaad maanta waagu intuu bariyo dib u xusuusataa wixii ka dhacay intaad xusuusan karayso adoo Allah u toobad keenay oo dadaalay oo toobad keen la yimi oo weysaystay inaad hooyato markaa seexato waa shay laga hormaan dhalinyarada iyo shabaabku waxa la yiraahdaa الشباب ينقسم إلى 3 أقسام dhalinyaradu saddex u qaybsamaan كو شباب مستقيم إن اليرو توسن أقل وعنبو كصوبحي أما إلهي ببدي توسيي واتوسن يهيو وسجس دريا وعبادة سنية إلهي بكعب سنية دين تو كردق ميا دنتي سوي قانا شباب مستقيم ونند اليرو توسن كلبات شباب منحرف ونند اليرو لكن إنما ما هو ويعسيه صلاة كليتها بل بالودة يوحاسو استعمالا معاصي حمان بكل احتراء وضدي وعنيد بكبر سيه كصدحات شباب متحير ومدور إرسان حقنا ماها كوا توصلنا كمتشيرو كوا دي أنبضينا كمتشيرو مال لح عياريا مالين waa tukanaya jaamaca usbuuc uu soo xaadiraya quraanka uu akhrinaya waa wardinaya gas adana waa gooy wixii kuwi kale la miisanaya ku dhex jira maalin ba qol la shaahaya xaalkiisu ma degana wuxuu kale waan wareersanahayo garanba maayo waxaan sameeyo waa caynkano isaga iswaalayade qofku iswaalan dee waalanaya marka inaad ka baydho kuwa baydhsanna aad ka baydho ka wareersanna aad ka baydho aad noqotid nin dhalinyaro oo toosan ilaahay ishu kugu haya subhanahu wa ta'ala marka dadaashid oo qalbigaagu wacan yahay oo dadaalkaagu wacan yahay ku bari taariya ilaahay subhanahu wa ta'ala hora lagu dhigaya xagaagaaga kordhaya waxyaaba laga maarmaanka waxa kamid ah takhalluq bil khuluq al hasan akhlaaq wanaagsan inaad yeelato waa laga maarmaan qofku ma noolaan karayo qof aan akhlaaq lahayn أخلاق وناكسن قفان لهين نولشي صديع بكشرتها وحين كاي من يسد علمك يا خير كما قفك طالبي هي مثلا هذا مثال معد كان بعد كان إنسان معد ك وحلا قولي إسكبده مجيء سكلية معنى علوس كفردية مجيء اسمه هاي الوحيين وحيين كم حال لقيت هذا الكتاب والسنة وحد قررنا إنسان ميدا ميشان كجرتا غرانيسا لما اوران معهد مقع كلا له لكن محل سي الوحيين بالسي marka lagu keeno macadka adaa yimi مثل waalidkaaba ku keenay marka lagu keeno maxaa lagu keenaya macadka waa su'aal isweydiin u baahan macadkii kitaabka iyo sunnaha lagu baranayay ee dadkii cilmiga lahaa ee diinta lahaa ee dadnimada lahaa ay gacanta ku hayaan ayaa lagu keenay sheekheena sheekh Shacbaan baba lagu keenay ماشي من فردية معدكي مسؤولكي عامك هو يدي باكو ودا أبي باكو ودا والو كني محل لقو كني ماشي ما يلقو مسلمية لقو كني ماشي يا كجواب ما يدتي لكن محات هاي مركو وراه مسلم بهت هايتي والدك كودنا ومسلم محل لقو كني ماشي أن تكون مسلما ملتزما إن نقطت
muslim diintiisii haysta oo bartay oo ku dhaqmaya macallinow inankan iga qabo waa caynka kan diinta inuu bartaan doonayaa inaad noqoto qof shareecadii iyo diintii mu'min miyir qaba inaad noqotaan meesha lagu keenay oo kitaabkii baratid oo sunnihii baratid oo ku dhaqantid oo shareecadiisa intaadan hadlin ayaa waxaa la rabaa muuqaalkaaga iyo dhaqankaagu inay kaa tarjumaan muuqaalkaaga marka la arko in diin la xusuustaa la rabaa oo ilaahay la xusuusto oo aan marya la xusuusan dee khamiiska iyo cimaamadu qof walba waa xidhan karaa carabta kuwa fanaaniinta baa khamiis iyo cimaamad iyo cigaal xidha marada waa la xidhan karaa zay islaam waa yahay dhar islaam waa la xidhan karaa laakiin waxa la daawanayo dhar maaha dee waa ruuxda jismigan dharka xidhan ku jirta socodkaaga marka la arko iyo labiskaaga iyo qaab dhaqankaaga waa in diin iyo alla xusuustii laga dhadhansadaa midkaasaa muhiim ah laakiin adiga oo macadkii dhiganaya oo waxyigii ilaahay baranaya kitaabkii iyo sunnihii haddii aad salaadii masaajidka weydaarato waar masaajidka soo gal masaajidka salaad waa la qiimayaa hooyo ay igu tiri dukaanka wax ka soo qabo xagga ay soo maro waalidkiiba halkan igu sugayay farmasiiga waxba kama jiraan adiga waxaas hadhow baad is leedahay xaggaa iska sii maro caynkan sameeyo cishaa'iga markaad guriga tegto eeyarda iska weysaysato afar iska tuur halkaa mar iskuulka markaad ka timaado salaaddii aad iska weydaarato jamci qur-aanka akhrintiisu ay kugu yartahay inta yaree muqararka casharka aad waxba soo akhrin wax iska caadi oo rootiini ah aad u qaadataba waxaan la baranaya inay tahay waa inaad u qaadataa diin aad baranayso oo jahliga naftaada kaga saarayso ummadda ku anfacayso innama alacmaalu بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى waxaad niyeysataa leedahay adigu macadka niyada u soo gashay ayaa ilaahay kugula tacaamulaya adiga ilaahay kugula tacaamulaya waa laga maarmaan marka inaad ogaatid muhiimadda halkan aad u timid cilmiga maxaad u baranaysaa cilmi ma baranaysid oo cilmi qalbigaaga ku ururaya iyo fahm wacan ma helaysid ilaa ilaahaad ka cabsato wattaqullaha ويعلمكم الله وفيرسل لي سوبركيي الله كعب صدا إلهي با واحد بريا إن الله كعب ستيد بلدونيا هداد إلهي كعب ستيد وقلبي قاعد عبسك شو علمي بالغوسينيا علمي إلهي بقى عنده كويس سبحانه وتعالى علمي بالغوسينيا فهم قال غوفريا حفظي قال غوفريا أقونتي بالغوفريا عبادتي بالغوفريا خير كلهم بالغوفريا لكن هدي عيار أي باشو كاته عيار كالي أو نقو أي كاته ayaan darro weyn wey si kalan kugu sheegaya maanta dhalinyaraa tahay aabbaha waa nool yahay hooyadaana waa nooshahay waa inta waalidkooda halka joogo waxaa dhici karta in waalidkii uu mantiqad kale degan yahay ama walaal ama cid waalida aad la joogtid oo magaalo kale waalidku joogo ama miyiba joogo oo inaad wax barato halka lagu keenay isagoo xooggaaga aan ka maarmaynin ayuu haddana inanku xabartu kuu keenay meesha maanta waxaad cunto iyo waxaad xidhato iyo waxaad cabto iyo fiigaad waxbarashada ku bixinayso iyo kutubta iyo buugaagta iyo qalmaanta midna jeebkaaga ka iibsan maysid ama waalidkaa kuu iibinaya ama ciddaa mas-uulka ka ah la joogtaa kuu iibinaysa laakiin inteebay socon doontaa intaasi waxay soconaysaa waqti kooban buu arrinkaas soconaya berritoo waad weynaan doontaa xilba adiga ku fuuli doona waalidkan iyo ciddan maanta gacanta kugu haysa haddaadba sii noolaato adaa lagaa rabaa berrito inaad masruufto dawadooda cuntadooda masruufkooda noloshooda aad ka shaqayso waa laga maarmaan haddaad ka faa'iidaysato maanta waqtiga berrina waad ka faa'iidayn doontaa haddaad maanta iska dayacdo berrina waa dayacmi doontaa waxaan marka aad isu xusuusinaynaa in lagu dadaalo dhallinyaroy waqtiga aad ku dadaashaan oo cilmiga waqti aad siisaan aad baranaysaan akhrintiisa ku dhaqanku ku barakoobayaa inaad la timaadid in ninka dhallinyarada ama qofka muslimka diintiisa uu ku cisoobo diintaada ciso kaaga weyni ma jirto diintaada inaad ku cisowdo ku dhaqantid waa laga maarmaan khayrka iyo dacwadda iyo diinta iyo wanaagga soconaya inaad qaybtaada ka qaadato waa laga maarmaan cibaadada inaad badiso waa laga maarmaan social mediahan ummaddu ku rogmatay inaad yaraysato intaad cilmiga baranayso aad iska ilaaliso oo facebookyadan iyo twitterradan iyo
waxyaabahan faraha badan iminka soo kordhay aanan garanaynba inaad aad isaga ilaaliso oo aad daawashadooda waxa ugu badan ee aad daawatay furto inuu kitaabka noqdo aad raacanayso iyo casharka iyo darsiga aad dhiganayso waxa ugu muhiimsan waa inuu sidaa noqdaa waalidka iyo mas'uuliyiinta ubadka dhalay xil baa idin saaran ubadkan aad gacanta ku haysaan bari waad hooyanaysaan waqtigiinu marka uu yimaado caruurta iyo cidda dhalinyarta gacanta ku haysaan macallimka iyo mas'uulka gacanta ku haya waa inaad la saaxiibtaa booqashadaadu ku badataa maamulaha u timaada mucallimiinta u timaada ka waraysataa goobta waxbarashada imaatinkaagu ha ku bato xilligaad fursad heshidba aqoontiisa ka waran akhlaaqdiisa ka warama nadaafadiisa ka warama diinta see ku yahay waa kana xuduurkiisa iyo imaatinka ka warama mafasixiisa iyo joogidiisa kee badan habsankiisa inaad ka warhayso oo macallinka iyo maamulka la saaxiibtid ilmahaagu ogaado inaad meeshii joogto oo aad soo gasho inaad la socotid la sheekaysatid inagu waqtiga waxaynu ku dhammaynaa maqaaxiyaha cishaha marka la tukado maqaaxibu qofku iska fadhiisanaya caawo dhan buu torrog shubaya 9 iyo 10 iyo wixii ka dambeeya qofku dhaadhacaya cishaha markaad tukato aqalkaaga tagadadan hawl muhiim lahayn caruurtaada waxbarashadooda maanta cishaagiyaa tukaday maqribkii hablihii yar inamadii joogay maanta yaan waxbarashadii aadin casharada ay soo dhigteen daraasadoodii inaad akhlaaqdoodii haddaad macallimiinta iyo aqalka kaga warhayso oon xalaalana aad siiso ilmahaasi waa barakoobaya ducadana aad ku ladho waqti inaad u samayso ilmihii aad u sheekayso waalidka weyni waa jaamicad laga baxayo inaad u sheekayso dhacdooyinkii aad aragtay ama goobjooga u ahayd aad uga sheekayso dhacdooyinka caas waalidnimada dhacdooyinka waxbarashada dhacdooyinka dhacay wixii muhiim ay qaadi karaan aqligoodu fahmi karo inaad uga sheekayso inaad la saaxiibtid wax badan bay noloshoodu ka bedelaysaa qodobkaas kale inaad cidda uu saaxiibka leeyahay ogaatid saaxiibkiisa inaad ilaalisid inaad ku xidhid asxaab iyo ubad wanaagsan ama jiiraanka ah ama aad garanayso inaad ku xidhid isu keentid saaxiib ka dhigtid adee walaalaad tihiin saaxiiba wada socda wada shaaheeya hooyo lacagta qaata ka sii shaaheeya halka markaad maqribka tukataan ku soo shaaheeya muhiimadaada waa inaad isku xidhaa inankaa wacan ee toosan iyo inankaaga isku xidhaa oo saaxiib wanaagsan u yeeshaa cidda uu raacayo xilligu imanayo xilligu baxayo waa inaad ka warhaysaa waa inaad u ducaysaa inagu carruurta waynu habaarnaa inta badan habaarku wax ma keeno waa cuquba adiga kugu soo noqonaysa ayaan darro inaad u ducayso waa laga maarmaan inaad adigu toosnaatid uu ku daawanayaa ilmuhu ku daawanaya nin macallima wuxuu iga sheekeeyey wuxuu yidhi aroortii markii aan iskuulka nimi ardaydii kalaaskay fadhiisataan soo galay biir inan ka mida inamadii kalaaska fadhiyey shandadii uu watay uu miiska soo saaray markaas wuxuu ka soo saaray caagad sharaaba oo kala baran iyo laama qaado ka soo saaray markaasuu cunayaayo waa inan yar buu yidhi sharaabkiina ku kabanaya markaan soo galay ba waxaan ku yidhi buu yidhi waryaaye waa maxay waxaanaad wadataa macallin waa hambadii aabba buu yidhi waan soo qaatay xalay buu meeshii shaahidii kaga tegay qadifadii kaga tegayoo shandadaan ku soo qaatay waxaan isay hadhow iska cuntid dee aabbihii baa cunaya wax waan buu moodaya wixii hambadii aabbahii baan soo qaatay buu waa ka daacad isagu ma jeedaa marka mushkilad marka ilmihii kulama yaabi karaysid moogta ma kula yaabi karaysid wixii adigu aad leed aabo ii keen sigaarka ii soo iibi orodoo heblaaya kabadhkeedii tagoo qaadkii dhigaalkaan dhigtay iga soo qaad mishiintii aabba dhiiriidhig iiga keen aad tidhaahdo dee berina isaga suryadal kale weecanaya soo maaha marka in dhaqan wanaagsan runta inaad imaha u sheegto markuu gira aabaan ku raaco may waan soo noqonayaa iska joogaaba nacnac baan kuu keenaya hadhow waad soo noqotay aabo nacnaci may waa soo ilaa waa beenta maadan soo ilaabin marka horena been baad kaga tegaysa inaad beenta ka ilaaliso sunta u sheegtid